qiimaha cambaha iyo liin-bambeelmada ayaa muddooyinkii dambe sare u kac aad u ballaaran laga dareemayaa, waxaana xabadda cambaha ay joogtaa 13,000 oo shilin Soomaali ah ama $1 ka yarna lagama qaadanayo suuqyada Muqdisho, waxaana taalacayn ah liin-bambeelmada oo iyadana si lamid ah qiimahaasi lagu kala iibsanayo suuqyada Muqdisho. mid ka mid ah ganacsatada ka shaqeysa suuqa beerta kana ganacsado liin-bambeelmada iyo cambaha ayaa inooga warbixiyay, wuxuuna inoo sheegay in bilooyinka soo aadan uu hoos u dhac aad u ballaaran uu ku imaan doono, waxaana sare u kaca uu ku macneeyay in roobabkii guga iyo deerta ka di'i jiray gudaha dalka ay baaqdeen darteeda ay sare u kac aad u ballaaran u keentay mirahan. horta sax waa horta hadda waqtiga la taagan yahay liin-bambeelmada qaali ah, waxaa ka mid ah cambaha qaali ah, babaay oo kale qaali waaye, laakiin justina waxaa raqiisan karaa raqiisan sax. cambaha horta xilligan waxaa la gaaray xilligii cambaha uu soo baxay oo imaanayay, laakiin hadda maadaama waddanka abaar ka dhacay haddana roob la-aan iska jirtay wiigii bishii hore soo dhaaf oo roob la-aan iska jirtay saasaa mina qaali oo noqday cambaha saas oo qaali noqday. sidoo kale waxa uu inoo sheegay in dalab ahaan loogu keeno si toos ahna beeraha ay uga imaan jireen ganacsatadana ay kasii iibsan jirtay, waxaana jumlo iyo tafaariiq inay ku gadaan oo inooga warbixiyay si lamidana caqabado ay ku yimaadiin marka ay usoo dukaamaysi tagaan dadka macaamiisha ah ee ku xiran iyo sidoo kale dadka kale ee usoo markaa doonto cambaha iyo liin-bambeelmada kuwaasi oo qiimahaas aadka u sareeya dartiis uga taga. qofka marka uu raqiis yahay qofka ilaa uu ku imaana marka waxa qiisaasa marka raqiisay baac degan u qaataan, laakiin qofka marka qaali oo yahay la wajiga u furan inuu qaato ama inuu kato, laakiin badnaa Soomaalida 80% way qaadanayaan waayo maxay xaaladda waddanka jiraan oo hadda wiigii la soo dhaafay ama liinta qaali noqotay xabadii 15 ku camal noqotay anaga ilaa qaali inay gadantaa maano dadka ilaa inay gataan marwaan marka saas isku walaatay, laakiin hadda isbuucan waxa uu soo raqiisay xabadii 8 ku camal leeyahay. hadda sidoo kale waxaa ka mid ah qaraa cambaha liinta oo kale baayga toos janaal iyo afgooy meelaha la keenaa aniga caad waa soo dalnaa leeyahay ganacsi aad qof marka iibsano baaygoor marka qaraa marka qaali oo yahay ama $6 iyo $5 camal la gaday, laakiin hadda marka raqiisan yahay $2 $3 waay. liintan iyo sidoo kale markay raqiisay 5,000 iyo 4,000 camal waay, laakiin hadda markay qaali noqoto oo sare oo noqoto camal $1 iyo 15 camal waay. cambaha sidoo kale markuu qaali noqdo asna $1 iyo 10 camal waay, laakiin markuu raqiis yahay 5,000 iyo 6,000 camal waay. sare u kacan ayaa imaanaya xilli dalka ay ka jirto abaar baahsan taasi oo qarka u saaran inay isku bedesho macluul ayna baaqdeen mararka qaarna ay yaraadeen roobabkii guga iyo deerta ka di'i jiray gudaha Soomaaliya, kuwaasi oo beeraleyda iyo xoolaheydaba ku kaliftay inay u barakacaan gudaha dalka deegaana ka mid ah.